ku dhawaad 36 saacadood oo dagaal kharaari uu ka socday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxa si rasmi ah u soo afjarmay dagaalkaasi kadib markii subaxnimadii hore ee saaka ay isdhiibeen hogaanka sare ee kooxda Ahlus Sunnah oo iyagu fariisin ku lahaa xira inji oo ku taala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug dagaal kharaad oo dhiig badan ku daatay kadib ayaa waxa uu suura gashay ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya in ay ku khasbaan hogaanka sare ee kooxda Ahlus Sunnah in ay hub ka dhigaan isuna soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka ah ee iyagu ka dagaalamayay magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan xirada inji ee ahayd saldhigga kooxda Ahlus Sunnah مسؤولينta dawladda federaalka saraakiisha ciidamada iyo maamulka Galmudug ayaan wali si rasmi ah uga hadlin xaaladda magaalada Dhuusamareeb haatan ay ku sugan tahay waxaana lagu wadaa in saacadaha inagu soo foolay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ka hadlaan xaaladda guud ee magaalada Dhuusamareeb iyo waxa laga yeelayo hogaankii sare ee kooxda Ahlus Sunnah oo haatan ay ciidamada dawladdu gacanta ku hayaan مسؤولينta ay ciidamada dawladda federaalka ah gacanta ku hayaan isuna soo dhiibay subaxnimadii saaka ayaa waxa kamid ah Sheekh Shaakir oo ahaa madaxweynihii maamulka Galmudug ee garabka Ahlus Sunnah wal Jamaa Macallin Maxamuud oo ahaa hogaamiyaha guud ee kooxda Ahlus Sunnah wal Jamaa Sheekh Cabdirasaaq Ashcari oo ahaa madaxa fulinta ee kooxda Ahlus Sunnah wal Jamaa iyo Sheekh Saadaq Sheekh Yuusuf oo isna kamid ahaa mas'uuliyiinta sare ee kooxda Ahlus Sunnah dhamaan ba mas'uuliyiintaasi ayaa waxa haatan gacanta ku haya taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Mas'uud Kaasi oo waan uu la galay ay suura gashay inay isku soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya hogaanka sare ee kooxda Ahlus Sunnah wal Jamaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug oo 36 saac la soo dhaafay ay dagaal kharaari ku dhexmareen hogaankii sare ee kooxda Ahlus Sunnah ciidamadii ka amar qaadanayay iyo ciidamada dawladda federaalka ayna ka barakaceen kumanaan qoys ayaa lagu wadaa shacabkii ka barakacay in ay dib ugu soo noqdaan ayna xaaladda nololeed ee magaalada Dhuusamareeb caadi ku soo noqoto si kastaba ha ahaatee shacabka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa walaac xoog leh waxa ay ka muujiyeen dagaaladii dhiiga badan oo ku daatay ee dhexmaray ciidamada Ahlus Sunnah iyo kuwa dawladda federaalka waxaana shacabku ay muujiyeen walaaca ay ka qabeen dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamada Ahlus Sunnah iyo kuwa dawladda federaalka mid kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb oo isagu ka hadlaya dhibaatadii ay kala kulmeen saacadihii uu dagaalku socday oo warbaahintu ay waraysi la yeelatay ayaa waxa uu yiri adiga abaara afartii habeenimo ayay yacnaha nagu bilaabatay rasaas dhex maraysay laba dhinac oo siyaasadda deegaanka ku hardamaya muddo adiga saacad ku dhawaada ayay socotay hakad ayay gashay warwar badan baan dareenay innaga dadka deegaanka haddaanu nahay waxa colaad noogu dambeysay waqti fog waxaan ku jirnay jawi soo kabasho ah oo magaalada bartankeedan joogay anigan kula hadlaya magaaladan ku dhex go'doomay ma soo aadin xaafadeyda ilaa ma hadda indhahaygan ku soo jeeda ma hurdin maxaa dhacay xilligii subaxda ah oo seexan lahaana way bilaabatay warwarka noocaasi ah baan dareemaynaa ma jiraan dad magaalada ka barakacay way jiraan magaalada baanaanka ilaa iyo hadday xataa socotaayo dadku way ka baxayaan magaalada maadaama madaafiic habow ah ay guryahooda ugu imaanayaan maadaama rasaasta wiiftada ay soo baxayso lana sii filan kara inay dhibaatooyin kala dhacaan oo aanan u jeedin waan rasmi ah oo u kala dabqaadida dhinacyadan hadda ishaya muujinaysa oo kala dabqaadidooda iyagii ay isu tarisayaan xaaladda haatan waa sidee waqtigan xaaladdu way degan tahay oo wax rasaasihii ma socdaan aan kula hadlayo hase yeeshee waxa ay naga maraysaa ninba owyaa kuleh ma u jeedno mana dareemayna cidnoo turaysa waayo adiga ilaa iyo 12 saacadood ay dusheena ku hardamayeen dhinacyadu wax mid kasta wuxuu leeyahay xal baan bidnay dagaalada على كل حال مشاكل كابان دريمينا واقرتي سانسانتا سيدا حدا إذين موقتا ما وحا إذين موقتا إن دقال كان مركلا ودعي كرو مسا إن وقبوبيو هالكا لغو كلا جوغو
nooma muuqato totally wax rajo ah oo ku aadan inaan nabad kusii jiifan karno. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi laa taqnaduu min raxmatillah, naxariista ilaahay ka quusan mayno. ilaahay siduu doono yeelo weeye, wuu awoodi karaa inuu kala joojiyo. laakiin xaalka aan hadda qiimaynayno iyo waxyaabaha noo muuqda markaan fiirin ma noo muuqato rajo nabadgelyo, nooma muuqato. dagaal wiil baa ku dhimanaya ee wiil kuma dhasho. maanta dhab ahaantii filimayn qof reer galmudugi in uu u durbaan tumi doono in wiilal ay inaga dhintaan, in rasaas la isaga godliyo magaaladii dhexdeeda, shacbigii ay barakac sameeyaan ma aynaan filanaynin. laakiin waxa weeye way dhacday, mar dambe yaan loo celinin shacbiga. nin waliba oo inuu xukumo rabaa ha ogaado waxa uu xukumi doonaa inay shacbiga kaas waxa uu Axmed Maxamed Jaamac oo kamid ah dadka magaalada Dhuusamareeb oo khadka taleefanka ugu warmay waryahayaga Samiira Cabdilaahi. haddaba si aanu u falanqeyno xaaladda ammaan ee Galmudug ayaa waxaan khadka taleefanka goorsii horreysay kula xiriiray Cabdisalaam Guleed oo ah ku-xigeenka madaxii hore ee NISA ee Soomaaliya, haatanna falanqeeya arrimaha ammaanka ee Soomaaliya. waxaan weydiiyey bal xaaladdan sida ay marka hore ku bilaabatayba. Galmudug waxay soo martay waqti dheer oo runtii la isku dayay in xal laga gaaro dawladda Soomaaliya iyo maamulkii meesha ka jiray Galmudug. waxayna ku soo dhamaatay isafgarawaay oo doorashooyin kala duwan ay dhaceen, madaxweynaha kala duwan lagu dhawaaqay, iyo madaxweynihii hore xaafo weli banaanka jooga oo xilki laga qaadin. marka waxaad u malaysaa in sidii la rabay sidii lagu talagalay iyo runtii sidii danta ugu jirta dadka deegaanka inaysan wax u dhicin. haddana waxay gaartay gacan ka hadal. aan isleeyahay ciidamadan uguma jirto gacan ka hadalka weliba wuxuu u dhexeeyaa ciidamadii dawladda iyo kuwii ahlu sunna oo dhinac ahaa. marka saamaynta ammaanka guud ee gobolka ku yeelan karto maxaa la oran karaa? runtii waa nasiib darro weyn ay ku tahay dadka deegaanka, gobolka guud iyo hadda meesha dagaal ka socdo. Dhuusamareeb waxay ahayd iyo deegaankaas wuxuu ahay meel muddo dheer ay ku dagaalamayeen maamulkii ahlu sunna oo dadka deegaanka runtii kaashanayay iyo al-shabaab oo dagaalo badan ku galay, muddo dheerna isku hortaagnay. amniyaa ka jiray oo kala dambeyn oo muddo dheer yani maamulka ahlu sunna ay gacanta ku hayeen. hadda dagaalkan ciidamada dawladda meesha iyo ahlu sunna isku dagaalamay, laba arrimoodba way dhaxalsiin kartaa. waxay dhaxalsiin kartaa in al-shabaab ay fursado weyn ka helaan maadaama dee maaragtay dadkii meesha difaacayay ammaankoodii qalqal gala ama iyagii bay iska soo horjeedaan. dadka deegaankana waxay geli kartaa baylax aad u weyn. dhinaca kalena waxay imaan kartaa kalsooni darro badan iyo dagaalkaani keeni karaa oo ah dadka deegaanka iyo maamulka laftiisa in kalsooni barada dhex gasho. marka waxaan isleeyahay waa waxa ugu xumaayay la rajeynayay inay dhacaan wax hadda maanta socda. al-shabaabne waxaan isleeyahay waa wixii ugu fiicnaay oo rajeynayeen inay dhacaan waxa hadda socda. laakiin waxaan rajeynaynaa in mar kasto xal laga gaaro oo dadka deegaanka iyo amniga guud ee Soomaaliyaba in idoo la eegayo danta guud. mar haddii madaxdii deegaankaasi haystaan aaway dowrkii odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii iyo dadka caadiga ah ee Galmudug maxaanay u istaageen oo dhibaatada iyaga ku wajahan tahay aanay wax uga oran karin? haddii aad la socotid markii hore dadka deegaanka waxaad u malaysaa maamulka sufa ama ahlu sunna ee macalin maxamed madaxa ka inay kala wareegeen awoodda dadka deegaanka oo iyagu ay maamul meel ka dhisan ay ahaayeen, gacantan ayagaa ku hayay. amni ha noqoto, dhaqaale ha noqoto, siyaasad ha noqoto, wax kasta ayaa gacanta ku hayay. dadka deegaanku saamayn badan kuma lahayn. markii dawladda Soomaaliya federaalku ay meesha timidne ayada lafteedu dee wax weyn runtii dadka uma reebin oo dadka deegaanka wax weyn kama siinin. marka waxaad u malaysaa dee wax dhabo meesha yaalin ka dhexeeyaan maamulkii ahlu sunna iyo maaragtay Galmudug meesha uga haray iyo dawladda Soomaaliya oo timid oo labadooduba aan dadka deegaanka wax weyn u ogoleen, wax weyn siinin. sababtaasina dadka banaanka uga fiirsanaya, laakiin waa run dhibaatadu waxay ku dhacaysaa waa dadka deegaanka. sharciga caalamiga markii la eego kale dawladaha dalka gudaha ayaga awoodda iyo ammaanka iyo qaabilsan in ay dalkaasi maamulaan. marka haddii dawladdii ay haatan leedahay waxaan doonaynaa inaan maamulkii deegaanka gacanta ku qabanno, ahlu sunnana aan dhahnabar markan hawsha aad soo qabateen taa maxaa ku jaban? is-afgarad wuxuu rabaa ku dhamaadee. is-afgarad aad baa loogu baahnay. waxaan isleeyahay dhaqaalo badanna waa lagu baxshay, waqti badanna waa lagu baxshay runtii inaan xabad u dhicin. laakiin nasiib darro dee meeshii ugu dambaysay bahashu ka sirgaxatayo ay dhinac kala aaday. waxaanan isleeyahay weli fursad baa taalla. dadku waa dad la dhashay, madaxweynuhu deegaanka uu ka soo jeedaa. ahlu sunnana waa dadkii deegaanka muddo dheer amaalna ku lahay runtii amni iyo kala dambeynna ka sameeyey, dhiig badanna uga baxay oo kula dagaalama al-shabaab. galguduud ama gobolkaas waa gobolka ugu horreeyey ee iska xoreeyey al-shabaab oo rabaabna jiduna ku baxsheen. maantana waxaan islahay abaalmarinay unbay u lahaayeen in lagu qadariyo, inkastoon isleeyahay dee
siyaasad baa meesha taala marka waxa la isku haystaa huwa cad siyaasadeed ee u malaymaayeen hadda wax weyn oo intaas ka badan oo meesha ka jiraan nasiib darrane gacan ka hadalay tagtaa haddii marka ay dawladdu ku adkaato sida hadda ay tahay oo dee awood la ku muquuniso waxna disho waxna xirto ee maamulka ahlu sunna waxaa adkaa doonta inay si caafimaad la meesha u maamulaan haddii ahlu sunna ay ku awood badatane daayadana waxay noqonaysaa juhdiga intaas la soo galay oo hal bacaad lagu lisaa ahlu sunna yani nabad waa keentay laakiin horumar weyn gobolka ma gaarsiin 12 sano hor taagnay dadka way hor fadhiyeen nabad waxaan ahayn maysateen dadku waxay sugayaan horumarka dawladda oo islaahay wuxuu baa imaanaya taasna waxaad malaysaa inay caqabad weyn hadda ku tahay dagaalka dhibka haatan taagan sidee lagu xallin karaa waxaan jeclaan lahay oon isleeyahay dadkana danaa ugu jirta aan arkayay in bulshadu inta badan ka hadlayso in xabajoojin degdega lagu dhawaaqo xal laga gaaro aan isleeyahay al-sunna xalay ogoshahay dawladduna xal bay ogolaan kartaa marka in xal la isugu yimaado oo aan xabad wax lagu xalin xabadda wadii la kala adkaana dakana meesha taala haddii aan la kala adkaana dee waa la isfiirsanaya marka xal baa loo baahan yahay